wuxuu musuq maasuq yahay siyaad uga maarsataan micnahu haydin dhacee ninkii moogowna maqal ninkii moogowna maqal wuxuu musuq maasuq yahay si aad uga maarsataan micnahu haydin dhacee ninkii moogowna maqal ninkii moogowna maqal أنا مهرانا يو وضها إحلو بدعو أيو مسوق ماسوق يا هاي مسؤوليتي يحلو سكالي لو مامولو بالشغل لغو كلامرون مني ما وحب الله قوان كان مهرانا يو وضها إحلو بدعو أيو مسوق ماسوق يا هاي kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal idil ahaantiinba meel kastoo aad joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijkii gaarka aynu kaga hadlaynay dhibaatada musuq maasuq uu leeyahay sida loo ceebtiri karo kana mahuraana iyo wadaha ehlo budco waa mar kale barnaamijkii gaarka aynu kaga hadlaynay dhibaatada musuq maasuq uu leeyahay waa 17 bishan sanada 2015 xad waxaana dhageystayaal barnaamijka intiisa badan aynu kaga bagan doonaa dhibaatada musuq maasuq uu leeyahay iyo sida looga hortagi karo ayadoo maanta inta badan barnaamijka aynu diiradda ku saarayno musuq maasuqa lagu sameeyo dadka liita gaar ahaan kuwa xubnahoodu qaar ay dhiman yihiin ayaa siyaabaha kala duwan ee musuq maasuqa lagu sameeyo xilliyada shaqada ay doonayaan waxbarashada tababarada iyo noloshooda intaba ayaan barnaamijka dhageystayaal galabta ku eegi doonaa mid kamid ah dadka curyaanka ah ee indhaha la oo kamid ah dalada indhoolayaasha Soomaaliyeed gaar ahaan Xuseen Maxamuud Xuseen oo isagu ah ninka arrimaha gudaha iyo xiriirka u qaabilsan indhoolayaasha Soomaaliyeed ayaa barnaamijka martiigu uga qayb gali doona dhageystayaal waxaana qaybaha dambe dhageystayaashu ay fikrad kaga dhiiban doonaan qaadka telefoonada sida la isaga ilaalin karo musuq maasuq lagu sameeyo dadka kuwada dhiban balse dhageystayaal alaba barnaamijku waxa caado ah in marka hore soo horumarno sheekadii musuq maasuq ka hadlaysay oo qaybta hore aynu ku dhageysano kadib ayaan martida iyo qaadka telefoonada inta u gudbi doonaa barnaamijka waxa farsameynaya xilligan Qadar Xuseen Axmed Qadar Yare waxa la socodsiinaya anigu Abdicays Cabdullaahi Maxamed Riyali balse sheekada maasuq yahay si aad uga marsataan inuu hayn dhacee موجونا مقال منكي موجونا مقال مسؤوليتي يحلو سكالي لو مامولو بالشغل لغو كلامرون مني ما وحب الله قوان كان مهرانا يو وضها إحلو بدعو أنا مهرانا يو وضها إحلو بدعو أيو مسوق ماسوق يا هاي شعبي هذا أنا ملك عليه لما
wake up wake up wake up wake up aye waxaa idinka rabaa saakay baryahan waxa aad qabateen wax ka jira ma laha waa baxdaan waa soo laabataan waa tagtaan waa soo noqotaan waxaa idin sheegayaa guryaha ku jira wadooyinka gudahooda ku jira jidadka boosaska dhulka aysan lahayn hore u galay ama gadaal u galay kulligood calaamad usoo dhufanaysaa kulli si degdeg ah emergency waa 4 saac gudahooda waa in wax laga qabtaa horniani gurigayga ku jirtiskay bismillaahi raxmaan ana xataa niyo habaryar waxoogaa gurigeed degantaa shalka qeyliyay laakiin maanta xoogaa wala isku baabaa kartaa waxaan ma shaqeeyaa maya aniga waxaan ma shaqeeyaa rinjas ka marnayna maxaa ka galadiga soo nabadaadi qalabkan oo soo qaatay maanta gurigan ka bilaw gurigan u jeedaa ka bilaw okay waayo salaamu calaykum calaykum salaam walaal gurigaagan calaamad marinaynaa sababtoo jidku soo galay waa maxay calaamadu calaamad jibis la marina gurigaaga jibis maxaa la yiraahdaa waa la jibinaa mar dhow guriga waa wadada ku jira gurigaaga war waa riyooteen wiilalii horda iska baxa waa say ku baxeen guriga lama jibinaye say ku baxeen sharci anagu soconaa sharci guriga ayaa lama taqaanaa degmada guriga ayaa lama taqaanaa jibiside yaa iska leh yaa iska leh waaxeedka degmadana iska leh gurigan lamana jibinayo horda iska baxa ilmayo iska lahaado anigu jabimayna laakiin rinjaan hadda marinaynaa rinji iska dhaaf waxa taaf rinjiga waa mariya rinjiga ka soconaa eedan bala ciyaar suuqintan maxay ahaayeen guriga asaamad rinjida saaray warii kan biyo dhaqaayay weliga shaqadan waan qabsanay hadda dhaqaaya waxa rinjiyeeseen mal ogaada naga wadi waa ku soo laabanaa biriyan gurigan ciidan soo wadayna waan la dumiyaa ay warka lama dumi kare adiyan ku dumin gacantaada hadaad ku dunso weydo ka tarbiila lagu dumiyaa gacanteeda iska dhaaf taada xataa kuma taaba kartid anigu waa dheelay iska bax aniga taliyahayga amar buu rinjigan waa kaas waa dhaqa rinjiga u jeedaa waa dhaqay ku daalin waa dhaqay guriga lambarkiisa qor lambarkaaga ma aqaan sax waa isaf gareysaan guriga lambarkiisa okay ana gurigayga waa la jibinaa ay kooda waa ku jiraan maxaa dhacay guri la dhaafay maanta ma jirto guriga ku dhagan yaraan saaxiibanaha degan sida qudhiis laakiin anaga maxaan nagal rinja barnaynaa war anigu aqaanani ninka ma isku ceewnaa saaxawo haba u garaacinba rinjiga iska mari ka soco haye calaamay baadi laakiin uma jeeday waa calaamay wariyaa maxaad sameeynaysan gurigaaga jabisa ku yimid rinji ayaa la marinayaa maxaa dhaaday gurigaaga waa la calaamadeynayaa sababtoo jabiska ayaa ku yimid wuxuu soo galay laamigu soo galay boos ma u baahan tahay oo aad wax ka dhisato maya waxaan u baahanahay male anigu waxaan u baahanahay oo kaliya garoonka banooniga laga soo banadamay as anaga nagu soo mashquusheen dharkaa wadana fiir dharka minishiibiyada idin soo xiraata dambiila taliyaha degmada ha taliyaha degmada aad joogto inaan gurigaaga oo sharci darrada wadada ugu soo galay inaan dumino gurigayga ma garoon banooni lagu ciyaarayo moodaa 20 sano gurigaaga laamiga ku jiray intaas dawlad beled kama jirin iska dhaxbartanka isgooskan ka dhisana cid imaamulaysa male والله تاس دولة دوسة وشيء شرعي كاوين أديك شرعي كاوين هاي وحن ربنا واسمينا أديك ورمى رنجي كمر أديك رنجي وامرسين هوا ورنجي وامرسين هاي شرعي نركدين سوقي كوا إزدياري هذا فيري أنا كلا تجنا أنا قاعدين كلا لوش عند السينا قايل قداي بوق ضد كأنها وصوب حنا كستينا أدين لا ولا بركينا شاق بحا يعني سأركن أمي أوكي تاسح حاس مجراني وتليها مغلي سرداني تليها هذا الكيس كلافني وتليها ولا كلا قرابتاني وتليها محوك شيء تليها نعيس ودتك كرو وحكي قاتا أنا أكل قادني وعلى من جورجان نيو أنا قصير من سمينا وياي أنا جورجان رنج مرمينه لكن هدي بريل ووي ماذا كل ما دفاعي كرنو وحنا سكرت النصيب دفاعي مي دفاعي ست على مدى مرمينه كليه على مدى كله فوق على مدى اسكت هلا أدوي أبو قبطة على مدى وصار مع سلام الدكتور سنة ولا لا أوكي وحنقول شيء يا gurigaaga calaamadan iska marinaynaa laakiin uu cid ku imaanaysa male calaamada daa saarto ka tarbiil kimi imaanayo maya meeqa calaamad saaran oo aan dumin adiga guryaha way badan yihiin muqdisho soo wada fiiri guryaha way wada saaran calaamad iska saarna waan ka tageynaa anaga adiga lacagteen noo ogolaa adiga wax suura galay ma calaamada de ka tagaan lacag waa siinaa hadii calaamada saarana lacag ma siinaa aniga taliyaha hayo way calaamada ma buuqdaha ii keen aniga nin xaafadda caan ka ah buuq iyo سواحن يوحس جودها نجيل ورتجودها وحكل قادنا جورجي حتى سوق لنا هذا كيستان ما نصي واحد معقول إنه شيء قديجة مركوا أنا واحد مو بين أنا عقل استلف لسكومة تورو بخشة هريس هدود ولا سكبكرة هي قليلة أنا نسينا أوكي ديار واي قليل هذا قاتل أوكي أنا أقول شيء أنا جورياس كلا هذا واحد يشيء أرض هاي حافظنا واسيسعنا ولي شقدا واسيودينا marka wani wala lacag la ka soo helnay cilmiga fahmay cilmiga fahmay sana saam aan tagno haye waxa leeyahay basar xeer kala joog calaamada saarayna lacagtina waa ka qaadanayna asaas waay laakiin taliyisan kula bixina taliyaha oo calaamada guriga maxuu dhigi karaa taliyaha shaqadan calaamadeeda anaga waxba uu sheegay taliyaha okay wax uu sheegay afdal wala dahab horta lacagaha maanta soo qaadana koow shaqadiina way socotaa
laakiin hee dadka magaalada horta way kala dumin hadda lacag soo helnay ma islaantan gurigaan islaanta aan aqaanaa beesa haystaa badarnool waaye marka adiga warigu kaa tegin adigoo isxanaajinaysa aniga ku maslaxaynaya marka dambe waxaa le xoogaa iska dhiib waa ka cadiimaysanayna maanta adiga iwadi marka yara iwadi hodi yaa waay see tahay minishibiyada degmada waaye tartiib adiga xaq ugu dhacaya salaamu calaykum wacalaykum salaam walaali dowladda hoosaan ka soconnay haye guryaha ayaa laamiga soo galay iyo kuwa jidadka soo galay iyo kuwa gadaali hore ka galay intaba waa la calaamadaynayey iyo kuwa jidka sharci daradaaba laga dhex dhisay marka gurigaagu waa wanaagsan yahay sharci darro lagama dhisin laakiin wax yar qaybta hore ee geedaha meeshay kugu yaalaan waxay ku jirtaa jidka haye marka waa calaamadaynaynaa dowladda hoose isbuuc kadibna waa la duminaa waa la duminaa calaamadana saaraynaa oo kuwa sida bareerka ah ugu jiraba lama dumiye kan aan ku jirin jidka waxa loo duminayo ii sheegi kartaa gurigaaga maalin walba waxaan arkaa wadooyinka xataa laamiyada waan ku arkaa guryo calaamaysan waagii uu bilowday jabiska ilaa hadda iska calaamaysan lama taab taas hawshaada ma ahan ma lagu dirsan maxay tahay kan aan ku jirin jidba kuma jira waxa lii soo raadinaa oo liga soo doon maxay tahay is dhageysano hawshaas ma lagu dirsan hawshaas adigu way ka weyntaa adiga guri calaamadayna aniga gurigaaga waa calaamadeeyaha taliyaha soo amra aniga hadalna ma igu soo celi kartid iyo calaamad ukaadi si fiican aan kula hadlo haye guryaha ujeedo calaamadda maanta aan la jabin dad ilbaxa baa iska leh oo dadkii hawsha waday fahmeen fahno wuu jiraa marka gurigaaga rinjil waa la marinayaa si kasta laakiin haddaad maanta hargalmada aad bixisane kolley waa lagu gudbinayaa war musuq maasuqi magaalada aanba macnii aniga raadin jiraaba isoo raadsadooba gurigayga iigu yimidba waraa wax makuu sheegaa lacag aan bixinaya ma lahane guriga ama rinji mari ama iska daa waa mid adiga kuu taala kan lama jebinaaye waa la jebinaa isaga taga kule war calaamad adiga calaamada shaqada ee calaamada marinaysid mariya gurigaaga hooshada ka calaamaya aniga ma qaadaysaa la calaamaya gurigaada waxa la dagaalamayo musuq maasuq ahayd man laga yaab in aniga gelisaniyo isaga taga tara bila brikena gurigaaga malaha iga mana qaadaysid lacag ani islaanta waa adagtaana fashilinin gurigaaga waa calaamadaynayna waa kula kaftamayno kaliya fiiri ana labadiina wajiyadiina waan fiirsaday meesha la idinka xukumaana tagaya idinka raacda adinka ka yaabi doontiinta idinka raacda ku magaalada ku dhaxaysiima lacagkan waa kuu deynaynaayo calaamad waa ka deynaynaayo waa ka dhaceynaa waa ka yeelaynaa waa la arki doonaa ana shaqa maba igala dhexaysan musuq maasuq wada shaqa igalama dhexaysaba waxaa la dagaalamaya wuxuu yahayba musuq maasuq sida ani aan ula dagaalamaya haddii ummadda ula dagaalami lahaydna wadankan wuu toosi lahaa qof dhiba lama arkeen marka haddii aa calaamayn laheedeen iyo haddaa hadda katarbiilkeen leed badan ku talaashilsiinayo ma lahani musuq maasuq aan la dagaalaya ku leedahay gurigeedii derbiyay ku darsatay geeday ku beeratay sariiraa meeshu taal waa biliirsanaya musuq maasuq waxaan la dagaale xaafadda doomeed war geedkan adaa kalan kugu talagalay inaad ku nasatido markaa soo daashay ku nasatid baabuurka tusoo mara aniga maaha ummadda una ku nastaa u dhisay wadadana gaari wuu mari karaa adina ay handid alaha ma isku dayin bo gaarina wuu mari karaa geedkan isdiyaari markaa nasata ugu talagalay degmadan ugu imaw buuqan iska anaaba idin soo raadinaya labadiina anaaba idin soo raadinaya waa dadkaaba raadinayaaba tiyinbo fadhigaygaaba iigu imaateenbo degmadan ugu imaw adiga gurigaaga inoo calaamadiisa gurigaan adiga mas-uul kama tiida yaa mas-uulkaa gurigan wixii mas-uulka adi iska daa ani waxaa anaga isfahmayne yaa mas-uulka guriga aniga aan baraadinayaba ani fadhigayga igu yimid wax yarna saa islahaa baxbal magaalada soo indhindhee bal waxa ka jiro soo ogow adinkiyaabay soo raadsada guriga iigu imaaday marka madaxdiina u imaanaya madaxdiina adiga qof haweenaatee guriga yaa mas-uulka dadkaasa la xaajoonina guriga ninka iska lahaa wuu maqan yahay ninka noo sheeg noo balami saaca la taagan mas-uuliyadiisa anaa haayo ninka goormo imaana xukuntaan oo imaanaya ciyaal iyo ku daalina meeshaan oo daa isaga taga adeega iska raaf daa rinji ku dhajin lahaydeen daa iska dayn lahaydeen ba isaga taga meesha adeeg anaga wadniyo shiliga ma qaadaysinani naga wala jabaa guriga naga wadi baa niyo report inaan celino waayo oo taliyi ku laabano adiga laakiin guriga geeska oo ganjal gaduud maxaa u marin weysan rinji ama hafta marin ma marin gurigaas nin saaxiibkii askale hadduu taliyi ku weydiyo xalada rinjiga go'ay waa sida rinjiga go'ay baa assalaamu calaykum taliyi وعليكم السلام ورحمة الله فيلك waa kana lambarada guryaha rinjiga aan soo marno waa kuwaana mahmada waxay ahayd macal cune muuqan doone musuqa cune muuqan doone macal cune muuqan doone musuqa cune muuqan doone
maanta jira mintina soo afaystayo musuqa dabargoynayo sharciga meel marinayo mareegtiyo dabinka dhigan ismoogaan ha ugu dhicin ismoogaan ha ugu dhicin maamaada waxay ahayd macal cune muuqan doone musuqa cune muuqan doone macal cune muuqan doone maanta shaqaad soo qabateen hay aad baad u shaqayseen waa mahadsantihiin waa nasan kartaan haddeertaan meeshii lagu gaaro 7 duhurnimo wixii ka dambeeya haddana shaqo kale taa idin taalla waa maasantaa taliya waxay kala aadaysaan meelo kale aad gelaysaan waxaa idinka rabaa inaad jaamac iyo maxamuudna aad hore u kaxaysaan diyaar in aad shaqaysaan dalkan shaqa u baahan yahay waa sida waa sida dadkii ka shaqaysan lahaana waa adinka ballanteenu waa inaan shaqaynaa inaan u diyaar garowdaan inaad wax qabataan warka taliyaha si fiican laakiin wuxuu ku yiri ka shaqaysto ku yiri wadankaa shaqa u baahan yahay shaqa waa ka shaqaysanina taliya waa inaad ka shaqaysataan aqaliya ka shaqaysto ka shaqaystaan looya waaba ka shaqaysanaaba haye haye anigu dacwaan ahay raggan sidaan arkaayo ama aan maqlaa cabaar baa idin ag taagnaa aha inaad shaqo gelinayso waan ku maqlaayay haye marka macnihii shaqadan aan usoo dirto mida adiga la ogtaa mase mid ayaga jeebkooda ay ka samaysteena shaqadan qarankaa u soo diray waa hawl loo diray waa hawl loo baahan yahay waa hawl wadankii dib loogu celinayo dadkii qaladaadka ka galay hantidii qaldaneed dhulkii qaldanaa sida qaabkii loo isticmaalay ayaa lagala dagaalamayaa hawshaan ay wadeen saakay u shaqo tageen waa horena waan ognahay okay qaranka shaqadan qaldan miyuu qabanayaa mase idinkaa wata maxaa waay shaqada qaldan war guryaha qaarna in macnihii calaamad la mariyo oo dadkana lagu handado haddaa macnihii wax isiisid waa kaa daynaya qaarna aan rijig la marin oo laga gudbo ma waxaa la ogtaa ciyaalka mise ayagaa wata maya waxaan la ogahay ayagaan dacwo ka ahay maya waxaan la ogahay maaha guryaha dhinacaan iga xigay dhinaca inta iga xigta wax lagu taabtay ma leh rinjiya ma la calaamayn lama calaameen haddana waa maqlay ani maray wada hadlaayeen taliyaha hadduuna qabsado waxaa leenahay rinjigaa go-ay fahme haye anigaaba macnihii howlahaas raadiyo waxaana ka soo horjeeda aniga musuq maasuqa waa sax anigii gurigayga igu yimi marka aniga waxay leeyihin lacag keen waa ku daynaynaa guriga waa kuu dhaafeena macnaha lacag haddaana siisa ma la jebinayo ma la jebinaa mana kaa calaameynaynaba gurigaaga ma jidka ku jiraa marka gurigayga jidka kuma jiro Haye. jidka geedabaa ku yaala Haye. aa ugu talagal islaamka inay ku nastaan waa sax maahane jid kuma jiro gurigayga marka handadaaday saaka ila imaadeen dadka sida bareerka ah jidka u galane lacagaa laga qaata lamana calaameyn guryahoodii guryo badan oo jidka ku jira oon saaka la calaamayn maa jira haa haddaad doonto hadda anaa ku geynaayo dhinacana iga xigaan dhinacana iga xigaan afartkoona iga xigaan calaamad laguma taalo kaalay adinka hay taliya shaqada kale aadayna okay taliya diyaar shaqo kuuma dirin haye waa shaqaysanaa shaqo kuuma dirine waxaan ku weydiiyey iga jawaab waa yahay eediinabaa i soo gaartay waxaa lay caddeeyoo lay sheegay in aad laaluus qaadateen guryaha qaarna aad ka soo tagteen oo aydnaan calaamayn guryaha qaarkoodna aad calaamayseen guryo aan dhulka ku jirin waddada aan gelin ama boos saa'ida aan dhul saa'ida aan wadan inaad calaamadayseen kuwii ku jiray waddooyinkana in aydnaan calaamadayn ayaa i soo gaartay maxaa ka jira arrinkaas ii sheeg taliya hal guri oo rinjiga go'a mooye inta kale waa la calaamadeeyey waa sidaa taliya hal guri rinjigaa go'a kaana guriga rinjigaa dhamaaday bis waan u sheegnay waxaan nidhi beriyaan soo noqonaynaa caawan marinayna kaa ha guri rinji ka go-ay ma jirto nimankaa xaaladooda taliisaa kuu sheega waay Aye. adaa mas-uuliyadooda hadda haaya shaqooyinka adaa u diraysa adaa amraysa soomaa waa ku wadaya waa soo arki kartaa guryihii ay kasoo tageen nimankaaneet waa niman bareer usoo dhigtay in ay dadka handadaan ma fahmaysaa dad agoon haysto oo waxba aan haysanin indhaha laga galaayo waxa aan arka anaa yaabaa ku dhaha maanta Ariga dhegeysta Dad aan awood lehna ay lee lacag kadastralo keen. wax midii sheega wadanka musuq laga daayo iska daa u tanaasul dantaada gaarka Ma, ugu tali- tanaasul danta guud taliya halkaa marka loo naqmaayo waa micnaha waxaan is lahayn dadka ayagaa kula lacag qaado musuq maasuqka ayagaa ogol asagay lacagtiisa ku soo xir u soo gudbi sharciga ma lacagan diidi karnaa taliya waa ha lacag waa diidis
musuq maasuq dooni mayno dooni mayno ma doonayno musuq maasuq mana rabno ka diyaar garooba arrintaas ka dhiidhiya ballanteenu maxay tahay musuq maasuq diidnay musuq maasuq diidnay adinkana diid bulshadan ka dhashay halyeeriya waaye waqtigayda dhuuxo waa dhaxalgal taladuye waa dhaxalgal taladuye bulshadan ka dhashay halyeeriya waaye waqtigayda dhuuxo waa dhaxalgal taladuye waa dhaxalgal taladuye عيد أبو أسيبتا أنت مقلك إيفورا أنت ردوغتا عيد أبو أسيبتا أنت مقلك إيفورا إذن بالكودي حتى داكو شقيسا دلتا إذن بالكودي حتى داكو شقيسا دلتا إذن بالكودي حتى داكو شقيسا wuxuu musuq maasuq yahay siyaad uga maarsataan micnahu haydin dhacee ninkii moogowna maqal ninkii moogowna maqal wuxuu musuq maasuq yahay si aad uga marsataan micnuhu haydin dhacee weli dhegaystayaal waxaan bartan kaga jirnaa qaybihii dhexe ee barnaamijkii gaarka aynu kaga hadlaynay dhibaatada musuq maasuq uu leeyahay iyo sida looga hortegi karo haddii aad dhegaysateen sheekadii ka hadlaysay musuq maasuqa iminkana waxaan milicsanayaa dhanka martida iyadoo dhegaystayaasha barnaamijka qaadka taleefanada ay kaga qaybgeli karaan isla markaana ay naga soo wici karaan taleefanka 64 43 33 amba 643 oo dhegaystayaashu ay barnaamijka kala soo xiriiri karaan balse waxaan fursad siinayaa mid ka mida dhalinta ururka indoolayaasha Soomaaliyeed ee gobolka Banaadir Xuseen Maxamuud Xuseen oo ah qof indhaha la isla markaana dhalinyaro waxa uu ka hadli doonaa dhibaatada musuq maasuq iyo saameynta uu ku yeeshay dadkooda indhaha la iyo waliba marka ay helaan tababaro qaabka loogu qaybiyo iyo kuwa aan tababarada lahayn iyo kuwa kale ee mujtamaca dhexdiisa ku nool sida loola hadlo amba loola dhaqmo musuq maasuq fara badan oo ka jira ayuu barnaamijka kaga qayb galayaa balse marka hore waxaan leeyahay soo dhawow ku bilow magacaaga iyo darajada aad urur ka hayso kadibna hore u gal barnaamijka Xuseen waa maasan tahay cabdicasiisow magacaygu waa xuseen maxamuud xuseen waxaan ka mid ahay ururka dhalinyarada Soomaaliyeed gaar ahaan dadka aragga la oo ahna arrimaha gudaha qaabilsan waxaan rabaa inaan ka hadlo ururada ka jira dalka Soomaaliyeed gaar ahaan dadka aragga la waxaa la sheegay dadka aragga la gaar ahaan oo urur ka dhisan magaalada Muqdisho ilaa hadda ay ka dhisan yihiin wax qabad inay la imaanin oo hatta dadka aragga la waxay u qabanin waxbarasho ee markii helaan oo kale dadkan dhalinyarada Soomaaliyeed in hatta waxbarasho markii helaan oo kale wax ka siin oo ay isku koobaan hatta seminaarada ay isku koobaan waxaa kaloo jirta dukaamada kale markii ninka wax ka gadanaya telefoon oo kale kushila loo soo taagaa ninka aragga la waxay ku tusataa in dhiirigelin ay haysanin dadka aragga la dukaamadana ay kabar qabin waxay u qaadanayaan ninkan inuu tugsano asigana waxay ka tahay telefoon gado dad waxaa jira guriga ku xareysan oo aragga la oo ay naftarkooda tababar la siinin dadkaas ururada ka jira dalka ay naftarkooda ay caawinin tababar ay siinin hase ahaatee waxaa u sii dheer inay ka hadlaan raashin aan rabnaa
waxaa laga rabaa qofka aragga la inaad raashiin ugu doodana u doodid waxbarashadiisa oo aad ka hadashid waxbarasho dad qofku waxbarto asigaa isku filan oo shaqaysanayo marka waxaan dhihi lahaa ururada magacadooda ma sheegayo way is yaqaanaan in dadka aragga la aysa ku ciyaaran mustaqbalkooda hase ahaatee wax qabad oo la imaanin waxaa hadda insha allah oo soo shaacbixi doono khamiistaan soo socota insha allah urur oo la magac baxay sooyab oo dhalinyarada ka shaqeeya ururada hadda dalka ka jira wax qabad oo la imaanin laamiyada hadda dadka oo darwadaha dhaqada traafikada ma yaqaanaan in dhool markuu wadada socdo u shacab micnaheeda ma yaqaanaan dadka indhoolaash oo wata hataa qaar aan wadinin ma yaqaanaan qaabka ushaas lagu socdo kii watana maba yaqaanaan tababar haddii loo fur lahaa oo la tababar lahaa dadkaas aragga la usha loo iibayo way ficnaan lahayd haddii ururadaas ay helaan olol ayagoo keliya isku koobaan dadkaas waxaa lagu siiyaa dad waxaa jira ganacsato qaar siiyaan hase ahaatee haddii la siina tababar laba helaanba waxaa jiro in hataa markay isku koobaan iskool oo hataa inay u furin dadka wax lagu baro iskoolaa jiro hataa inay caawinin oo tooda ka doodaan oo iskool ku yaalo gobolka banaadir gaar ahaan waa beri iskuulkaas oo loo magacaabo albasiir ee hataa wax u qabanin oo hataa dhihin ee u doodin arrimahaardanimo ka shaqeeya waan ku dareemay waxaad ka mid tahay ama aad xubin ka haysaa ururka indhoolayaasha ah musuq maasuqa ugu badan barnaamijka aad nagala qaybgalayso waa barnaamijkii gaarka aan kaga hadlaynay dhibaatada musuq maasuq uu leeyahay sida looga hortagi karo musuq maasuqa ugu badan ee idin haya halkuu idinka soo wajahaa dhankeesu idinka haya wuxuu naga soo wajahaa dadka aragga la gaar ahaan ardadeena anaga dhalinyarada oo hadda maanta waxbarashay barteen in wixii deeq oo dalka dibadda laga helaa ayna wada siinin dadka ururadaasi oo hataa qayb naga siinin hase ahaatee tababar ee dadka hataa ay u furin oo hadda jaamacadaha ay u qalqaalin kii hadda maanta dugsi sare dhameeyey kii aan dugsi sare gaarinna oo hataa la tababarin waxaasoo kale jirto in dadka waxbarasho loo raashiinkii helaan hataa ay isku koobaan maahan inaad dadka raashiin bartid waxaa laga rabo inay baraan waxbarashada musuqmaasuqu wuxuu yahay dadka waxbarasho inay isku koobaan oo dadka ururka gaar ahaan ururka inuu isku koobo waxbarashada keligiisa maahan oo inuu dadka dhan wada fidiya waxbarashada gaarsiiyaa haddii ururka isku koobo isku koobtay ururka waay marka waxaan dhihi lahaa ururada dalka ka jira gaar ahaan dadka aragga la iyo sheegan inay urur yihiin ha sheegtaan inay ayaga macnaha isku ogol urur waxaa la yidhaahdaa markaad sheegatid hebel nahay waxaad sheegatay soomaaliya o dhan inaad madax u tahay hase ahaatee madaxnimadina aad ka soo bixin oo waxna aad qabanin waxaan ugu baaqayaa dadkaasi aragga la oo hadda sheegtay inay madax yihiin inay wax qaban karin wax qabashada ee la maawaayeen dadka ganacsatada waxaa ugu baaqayaa dadkaas inta caawinayso in wax caawinaad aan la siinin maxaa dhacay dadka aragga la dhalinyarada hadda soo baxaysa in la sii odayaashaas hadda maanta in wax barasho la-aan ay hayso dadkii haddii waxbarasho helaan ay ayagu isku koobaan oo dibadda la aadan taa waa ka xumaay in dhalinyarada soomaaliyeed oo maanta wax bartay in aan la siinin kaambaniyaasha hataa qaar waxaa jira caawiyo amise ahaatee oo kor ka maamulo hay-adaha naqdaano oo ku taageero barnaamijkaasi oo ay naftarkooda aan ogeyn in dadka ayagoo og indhoolaasha in waxbarasho la siinin oo hataa la tababarin ayagoo og ay ku taageerayaan ugu dambeyntii marka sidee indhoolayaashu ay iskaga kaashan karaan inay ka hortagaan guud ahaan musuq maasuq dhaca ee ayaga saameyn ku yeesha sidee ugu hortagi karaan waxay uga hortagi karaan dadka dhalinyarada inay istaageeraan gaar ahaan dadka hadda soo koraya daada yaryarka ah inay istaageeraan oo macnaha wax walba ha naqatay isku taageeraan isku taageera in badar la qaato isku taageeran waxay tahay waxbarashada in tababar la qaato wax walba ururkan sooyab oo la yidhaahdo oo la magac baxay sooyab oo hadda ku yaalo degmada waa beri xafiis oo ilaa hadda weli hadda yeeli doono insha allah khamiista la shaabixi doono dadka hadda gobolka banaadir iyo hareeraha ku dhow dhammaan insha allah maahan ururkan dadka waxaa u sheegaya in ururkan loo dhisin dad oo gobolka banaadir ah waxaa loo dhisay dalka soomaaliya dhalinyaradoo dhan oo mid gudoomiyo ah
marka waxaan dhihi lahaa alla iska daayo musuq maasuq aad wadaan waa kuwe dhalinyaradaas ka jira gaalaan dadka aragga la aye marka ururka waxaa loo dhisay dhalinyarada kuwa aragga la ee liita ee iminkaan ururada ku jirin ururka hadda dhalinyarada la dhisay maahan in urur oo dad odayaal ku jiraan waa dhalinyaro oo soo abaabushay oo gartay dadka aragga la inay caawiyaan oo waxbarasho ku caawiyaan tababarka sidii usha loogu socon lahaa wadooyinka iyo dukaamada sida loo tababari lahaa oo ahaantooda loo sheegi lahaa wacyigelinta bulshada ay ka mid tahay in marka qofku wax ka iibsana oo kale kursidaan usoo taagin aad ka dhigin qof tuugsana oo kale waa mahadsantaha waan kaaga mahad celinayaa sida habboon aad kaga qayb gashay barnaamijkan gaarka oo aynu galabta kaga hadlaynay dhibaatada musuq maasuq uu leeyahay iyo sida looga hortegi karo mahadsanid waa mahadsantaha mudane wuxuu musuq maasuq yahay siyaad uga maarsataan micnahu haydin dhacee ninkii moogowna maqal ninkii moogowna maqal wuxuu musuq maasuq yahay si aad uga maarsataan qaybaha qaadka taleefanada iyo dhegeystayaasha ayaan jeclahay markaan aan galo dhegeysto waxaad naga soo wici kartaa taleefanka 64 43 33 waxaad soo garaacaysaa oo kaliya waxba furaa laga hormarinaya ma jiraan waa 6 4 4 3 3 3 waa 64 43 33 toos ayaad barnaamij uga qayb galaysaa fikirkaaga ku aadan musuq maasuqa saameynta uu ku yeeshay nolosha Soomaalida gaar ahaan dadka curyaanka ah ayaan galabta dhegeystayaal ka doodi doonaa ayuu musuq maasuq yahay mas-uuliyadiyo xilkoosi kale loo maamulo bulshada lagu kala madhoon midnimo waxba loogu qaban kana mahuraanayo wadaha loogu dhaco ayuu musuq maasuq yahay ninkii maamula hantida malkooyinka horumarkiyo maaraynta danguud la rabay mas-uuliyadiyo xilkoosi kale loo maamulo bulshada lagu kala madhoon midnimo waxba loogu qaban kana mahuraanayo wadaha loogu dhaco ayuu musuq maasuq yahay mas-uuliyadiyo xilkoosi kale loo maamulo qadadka taleefanada iyo dhegeystayaasha barnaamijka ayaan jeclahay inaan fursad siiyo dhegeystaha ugu horeeya barnaamijka ayaan fursad siinayaa si uu uga qayb galo halo asalaamu calaykum halo waan ku maqlaa walaal magacaaga magaca waa cabdullaahi cabdirashiid axmed wartanood barnaamijka mala socotay ayay galabta waxaanu ka hadlaynaa musuq maasuqa gaar ahaan saameynta uu ku yeeshay dadka jirku qayb ka maqan tahay ee curyaanka ah galabta waxaynu ka hadlaynaa musuq maasuqa saameynta uu ku yeeshay dadka curyaanka gaar ahaan kuwa indhaha la bal fikirkaaga soo gudub musuq maasuqa dadka curyaanka iyo dadka hello barnaamijka mala socnaan umaleynaya dhegeystayaasha barnaamijka waxaan ka codsanaynaa marka ay soo wacayaan inay noqdaan kuwa la socda barnaamijka oo dhegeysta si markaasi fikirkooda ay uga qayb galaan haddii dhegeystaha barnaamijka uusan dhegeysan amba uusan la soconin waa mushkilo inteeda la eg marka sidaa daraadeed waxaan ka codsanayaa in ay dhegeystaan barnaamijka dhegeystaha qaad ku jira ayaan fursad siinayaa halo asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu walaal magacaaga iyo deegaanka aad iga soo wacayso magaca waa cabaas maxamed xuseen degmada waa beri gobolka banaadir cabaas barnaamijku waa la socotaan umalaynaya adoobelkabe ayo fikirkaaga horta dadkan curyaanka gaar ahaan dadka indhaha la musuq maasuqa jira saameyn intee la eg ay ku yeesheen aan dhihi lahaa ahaanteyda haye marka waxaa marmarka qaar markaad tagtid dukaamada oo wax gadanaysid dadka qaar waxay ka aaminsan yihiin inaad tugsanaysid oo lacag iyada lacag kusoo saagayaba marka waxaan ka codsan lahayn dadka Soomaaliyeed oo naga dhegeysanaya idaacadda Banaadir Muujada FM 103.4 maadaama aan ahaantii ahay qof arag la waxaan ka codsan lahayn inay naga dhaafaan yastinta inagu qabaan inagu kalsoonaan anaga waxaan qabsan karnaa wax walba uu qabsan karo qofka lixaadkiisa qaba
marka aan kasoo gudubno dhibaatooyinka dadka aad kala kulantaan tababaro ma heshaan idinku dhiina oo ku aadan qaabkeed u socolahaydeen qaabka usha loo isticmaalinayo waxyaabaha lamida cabaas ahaan weli ma arkin tababaro oo nala sameeyo waxaa jirta dhowr minxo oo waxbarasho oo la bixiyo weli ma arkin dhowr Soomaaliyeed oo da'yar ah oo minxaas ku guuleystay marka kaada marka ma ka hadasheen arintaas oo ma ka dhiidhiseen ka indhoolayaal ahaan aadooban urur noolyaala jiraba oo ku qaraabanaya magaceena balse waxaan iigan ugu digayaa in ay ururaas oo magaceena ku qaraabanayaan ee naga dhaafaan dhibaatada ay nagu wadaan ugu dambeyntii sidee silada guud ahaan musuqmaasuqa waa looga ciribtiri karaa dalka Soomaaliya waxaan isii karaa in dhalinyarada indhaha la ama guud ahaan dadka curyaanka ay gacmaha isqabsadaan oo wax walba ay kasoo gaar dhibaatadaas ay u dulqaataan waxaan leeyahay meel kasta oo joogtaan dhalinyarada indhaha la gacmaha isqabsada waa maasantaa waan kaaga mahad celinayaa fikirkaaga iyo sida habboon aad barnaamijka kaga qayb gashay wuxuu musuqmaasuq yahay si aad uga maarsataan micnahu haydin dhacee ninkii moogowna maqal ninkii moogowna maqal wuxuu musuqmaasuq yahay si aad uga qadka xiga dhegeystaha ku jira ayaan jeclahay inaan fursad siiyo halow salaamu calaykum السلام ورحمة الله وبركاته. سودو مجا. هذه هي صاحبك نلتشوا حسين شعب الصوماليات مالك ساجبتها هودي ذيك الجلب نكسن. جلب لمذا سودو مجا عجا. كاب ودي جسلو مجا عابا عبد الله معلم قري حافظ والبركة تجبدنا هذا. عبد الله أدي عطيا السرو قاضي جديد برامج كلا سعتي بالكسودو. ما شاء الله وكل هرتم مسق ومتك كلي ترك نديبو دي صابته maxaa kaadana rag dadkii noolaha lahay waxa arkaysa dadka barakacayaasha oo dhexdooda lixaad ilaahay oo tam ka dhigay oo meel aan la-aan hantidii aan dadka wax loogu soo dhiibay in inta la soo dareeyo wax qayb kamid ah la sii qaybna lagu shubtay baqaarada marka waxaan leeyahay dhibaatada ugu weyn oo musuqmaasuq waay dadkii noolayaashan ilaaha u maqanayaan la sabra oo dulqaata dadkii lixdoodi lixaad qabay ayaa magaaladan wax kula marka waxaan leeyahay ilaah wuxuu keeni doonaa dad oo ilaahay ka cabsado oo si wanaag wax u qaybiyaan laakiin kuwan liita ee xubnaha jirkooda qayb kamid ah ay maqan yihiin ayaga ka mudan dadka lixaadda qaba marka soo looma baahna ayaga loo diirnaxo oo loo danqado ha ma sha Allah waa sax laakiin lixdiisa lixaad tam ay tahay xoolo oo waa maanta marnaa ma laga yaabo inuu helo nin lixdiis lixaad tam ahaan oo waxaa la dhihi karaa oo keliya way soo socdaan kis yaraa soo hormartay marka ninkii oo ilaahay ka cabsanayaan ma uusan samayn lahayn moogtahay wax dhibaata ilaahay kula xisaabtamay rasuulku jooga salawaatullaahi wasalaamu calayh ayaa asxaabta qayb kamid saan wax usii daray jira marka waxaan leeyahay imtixaan adduun waayo dadka waxyaabaha loo soo dhiibo ummadda masaakiinta loogu soo dhiibo adduun aakhiro ay ku cadaaban yihiin waxa ilaahay ka cabsada laakiin waxaa la leeyahay marka hay-adaha ay wax bixiyaan xitaa dadka indhaha la ayagaas musuqmaasuqa ayaa la leeyahay marka guud ahaan musuqmaasuq sidee looga gudbi karaa silada fikiraan musuqmaasuq waxaa looga gudbi karaa qof walba oo ilaahay wax u soo dhiibay qof muslim ugu soo dhiibay inuu ilaahay ka cabsado sideeta uu ku dhiibo noloshiisa ilaahay kafaalo qaada ma ahan boqol loor oo loo soo dhiibay inuu kontonna baqaar ku shubo kontonna oo dadka dhexgeeya aniga maxaa cuna u leey war noloshaad mar hore ayaa la kafaalo qaaday ummadii wixii lagugu soo dhiibay si xayaatan u sii ilaaha ajir iyo xasanaad ku sii doona adduun iyo aakhira waxaan leeyahay ummadda mar walba wax loo soo dhiibay hadday ahaan leed hay-ado iyo haddii ahaan leed wasaarada waxaan leeyahay ilaahay ka cabsad ilaahay u laabta marka wax la sii daray hadda waxba tirimaan wax kasta caloolay galayaan kabacdi musqulaa lagu sii shubaa ilaahay laga cabsado qof walba wax walba sida loogu soo dhiibo halloosii ummadeen dhoolayaashan waxaan leeyahay ilaahay ayaa idiin maqan sabra oo dulqaata saaxib galab wanaagsan waa mahadsan tahay wanaagsan oo wacan weli waxaynu bartan ka jirnaa qaybaha qaadka teleefanada iyo dhegeystayaasha oo barnaamijka markaasi igala qayb galayaan ayadoo galabta inta badan aynu ka hadlayno musuqmaasuqa dhegeystaha xiga qadka ku jira halow salaamu calaykum dhegeystahaasi qadka ayaa ka go-ay wuxuu musuqmaasuq yahay si aad uga maarsataan micnahu haydin dhacee ninkii moogowna maqal ninkii moogowna maqal qadka xiga dhegeystaha ku jira ayaan jeclahay inaan fursad siiyo halow salaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولكن هذه بعض البنات waxaa la galab wanaagsan wanaagsan oo wacan soo dhow walaal magacaaga iyo deegaanka naga soo wacayso waa dhama walaal magacaygu waa Sagal Axmed Xasan yaaqsi carfaadna waan ka soo wacaya haye
kulley walaahi musuqmaasuq waa la sheegay musuqmaasuq dalka soomaaliya wuu ka jiraa laakiin waxaa looga bixi karaa baadhida maadaama dadkaas indhoolayaasha ee dad dhibaataysan yihiin madaxa waxaad arkaysaa dhuuti oo meesha markii wax lagu qaybinayo kale dad lixdooda waxa la siinayo oo guryaashooda badar ka soo cuneen marka calooshooda maxaa u guuran tahay dadkaas inay dhibaato weyn baa haysta baadhila marka musuqmaasuq waxaa looga gudbi karaa shacabka soomaaliya meel kastoo jooga inay musuqmaasuq iska dhaafaan dowladda federaalka soomaaliya ayagana sidoo kale baadhila dadkan wax lagu soo dhiibo sidii wanaagsan loo gaarsiiyo baadhila walaalkeen laakiin dadkan waa dadka liita ayaa la leeyahay marka musuqmaasuq nacayb badan ayuu ka jiraa masalada marka dadkaani haddii aan laga hadlin musuqmaasuq wuu yaraan karaa wallaahi waa sax waa yaraan karaa baa dhihi lahaa haddii musuqmaasuq laga hadlo oo dadka calishaan indhoolayaasha dadka curyaamiinta oo kaleeto dadka ugu liita baa dhihi lahaa maadaama lixdooda lixaad ii qabinayo calishaan kuwa lixdooda lixaad qaba ayagana ee muxuu ahaa inay wax musuqmaasuqa laga fiicanya markii aadahayaasha ayagana waxaan ka codsanaynaa inay dadka calishaan sidii loogu baahna wax u gaarsiin dadkaas indhoolayaasha waa dadka wax mudan oo in wax la gaarsiiyo ku wanaagsan baa dhihi lahaa marka ilaahay inta ka baqdin waxaan dhihi lahaa musuqmaasuq inta iska dhaafin dadka mudan waxa in la siiyo hala siiyo baa dhihi walaalkeen waa mahadsantaha walaal wuxuu musuqmaasuq yahay si aad uga maarsataan micnahu haydin dhacee ninkii moogowna maqal ninkii moogowna maqal wuxuu musuqmaasuq yahay si aad uga maarsataan micnahu haydin dhacee ninkii moogowna maqal ninkii moogowna maqal mas-uuliyadiyo xilkoosi kale loo maamulo bulshada lagu kala madhoon midnimo waxba loogu qaban kana mahuraanayo dhegeystaha ugu dambeeya barnaamijka ayaan jeclahay aan fursad siiyo halo asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum wacalaykum asalaam walaal soo dhawow magacaaga iyo deegaankaad naga soo wacayso magacu maxamed daacad oo jooga shabeellada hoose gaar ahaan baraawe xaafadda hanti wadaag barnaamijku waa la socotaan umlaynayaa hore usoo gal musuqmaasuq haddaan ka hadlay aad iyo aad horta wuxuu u galay dalka soomaaliya haye meel kastoo galay indhoolayaasha dhexdooda waa is musuqmaasuqa haddaan ka hadlay riyal haye meel kastoo gala waxaa la dhahaa qofkii inuu ilaahay ka cabsado si fiican dadka hadda waxa lagu soo dhiyo mas-uul loogu soo dhiyo oo gudbiyo inuu si wanaag qayaan uusan aqoon laakiin sadda dowdowmarin ay jirto musuqmaasuq meel kastoo gala ugu dambeyn sidee musuqmaasuq loogu gudbi karaa waxaa lagu gudbi karaa qofka hadduu daacad yahay si wanaag wax lagu siino si wanaag ku bixiyo oo la wacyigeliyo nidaamka hantada wax laga bedelaa leeyahay waa mahadsantahay dhegeystahaas ayaa u dambeeya dhanka fikirka amba ka qayb qaadashada dhanka dooda barnaamijka gaarka oon kaga hadlayna dhibaatada musuqmaasuq uu leeyahay iyo sida looga hortagi karo wuxuu musuqmaasuq yahay si aad uga maarsataan barnaamijka dhegeystayaal intii uu socdo waxaa igala qayb galay oo marti istuudiyaha igu ahaa mid ka mid ah ardayda amba dhalinyarada indhaha la gaar ahaan mas-uulka dhanka xiriirka arrimaha dibadda u qaabilsan xuseen maxamuud xuseen oo ah shakhsi indhaha la islamarkaana barnaamijka kaga hadlayay dhibaatada dadkii noolayaasha ay qabaan iyo sida loo musuqmaasuqo waxaan malaayiin jeer u mahadcelinayaa dhegeystayaashii dhanka qaadadka teleefanada barnaamijka kaga qayb galay oo qaarkood qaar indhaha la ay ku jireen islamarkaana fikirkooda dhiibanayay taasi oo xaq ah in qof walba fikirkiisa xuriya inuu dhiibto kana hadla dhibaatada haysata dhammaantood waxaan leeyahay waa mahadsantihiin dhanka farsamada waa qadar xuseen axmed qadar yare waxaa barnaamijka tabinaya anigoo abdicaiis cabdullaahi maxamed riyali barnaamijka waxaa gacan ka geysanaya hadda markhaati idaacadda bandir way baahinaysay waa bahdii barnaamijka oo isku duuban odin leh inta barnaamij midkaan lamid aynu kulmayno nabad gelyo